gobolka Alberta ee Canada ayaa ku dhawaaqay madax banaani kadib markii ay ka cawdeen gacan bidixeyn aad u fara badan oo dawladoodii Canada ay ka tirsanaayeen ee kula kacday sanadihii u dambeeyay Trudeau ay u adkeysan waayeen kan hadda imaaday ee Mark Carney uu ugu sii daray Alberta sida ognahay waa gobolka qaabilo qaxootiyada caalamka meel kasta oo waliba kuwa Soomaalida ah gobolka ay tagaan oo ay ku qulqulaan weeye ama ay iska dhiibaan ama qaxootinimada loogu qaado sida ognahay gobolka Alberta waxa ka tirsan magaalada Edmonton oo ah magaalada qaxootiyada ugu badan waliba dhinaca Soomaalida hadda ka eegno Soomaalidii ugu faraha badneed ee Canada gasho ay tagto meesha Alberta oo halkaas ay qaxootinimo loogu qaabilay ama ay ku nool yihiin Alberta waxyaabaha ay sheegay ku kalifay in ay maanta ku dhawaaqday inay gooni u goosato ama independent ay ku dhawaaqdo waxa weeye in mashaariicda aan la soo gaarsiinin isbuucii la soo dhaafay ardayda iyo waliba macallimiinta iskoolaadkeeda ayaa banaanbaxyo waaweyn sameynayay magaalooyinka waaweyn sida Edmonton Alberta province ee dalkaasi Canada marka waxyaabaha ku dhaliyay ayaa kamid ah waxyaabo macnaha si daba dheeraaday ra'iisul wasaarihii imaado sida ognahayba ra'iisul wasaare kasta oo imaado waxay ka cawdaan mar walbo ay u adkeysan jireen sida ay ayaga laftirkoodaba ka qeexeen meesha ayada ay ka hadlayeen muwaadiniinta reer Alberta bartaas ay ka qireen in adkeysigii uu ka soo dhamaaday hadda maadaama waxyaabo badan ay u soo adkeysteen ra'iisul wasaarayaal fara badan oo iska badbedelay prime ministerka Canada wax ka qaban waayeen intaas oo ra'iisul wasaare sida ognahay Canada dawlad ahaan waxay hoos imaataa dawladda UK ama Britain ama Great Britain ay hoos imaataa Canada iyo Australia New Zealand iyo wadamo kale oo fara badan ayaa hoos tago UK ama Ingiriiska sida ognahay waxay ka tirsan yihiin boqortooyada Ingiriiska Canada Prime Minister way leedahay of course in ay madaxweyne yeelan weyso taas waxay ku tusaysaa dad badan ay ogyihiin Soomaali badan laga yaabo in aysan ogeyn Canada inay hoos tagto UK ama Ingiriiska in ay hoos tagto oo xaggaas laga xukumo marka waxyaabaha ay ku dhawaaqayaan ayaa waxa kamid ah in ay u dacwoonayaan boqorka Ingiriis boqor Charles ay u dacwoonayaan oo ay leeyihiin waxa rabnaa madax banaani in aan ka go'no ama hadii kale xuquuqdeeni ee sheegay barta la soo dhigo iskoolaadkan laga kala cararay ee macallimiintii mushaar la'aanta ku dhacday sidii qaab macnaha loola dhaqmay in la takooray oo kale waa sida ayaga ka dhigan iyo sida muuqata statistics-ka ka muuqataba qaab noocaas ah in loola dhaqmo sidoo kale waa wax laga garaabi karo maadaama dad muwaadiniin ah waliba Canadian ah halkaasi ku dhashay sida ognahayba meelihii Canada laga aasaasay ama markii dawladnimadeeda lagu dhawaaqayay meelihii ugu horeeyay oo laga aasaasay ama functional laga dhigay waxyaha kala duwan ee dawladda ayay kamid tahay Alberta ama iyada ayaaba ugu horeysay bal muuqaalkan ila daawo waa muwaadiniin reer Alberta ah oo calankii gobolka Alberta u bedelay in macnaha ay sheegay wadan ay ka dhigaan oo calankii wave gareenahayo oo cidna hal qof oo kamid ah xitaa uusan soo qaadin calanka Canada oo dhamaantood calanka ay sheegay gobolkooda ama Alberta sida ay sheegeen independence ayaa ku doonina oo macnaha madax banaani ayaa rabnaa We send $70 billion a year to Ottawa in tax revenue, in GST, capital gains tax, carbon tax, industrial carbon tax, all of the bullshit taxes that Ottawa levies on us to take our wealth to fund social services in Quebec and the Maritimes. And it's time for this to stop. We send $70 billion a year to Ottawa. We get less than $20 billion a year back. Even after funding an Alberta Armed Forces at 3%, tripling the amount of money spent on the Indigenous people of this province, that Ottawa has left in abject poverty. Political rally ayuu u egyahay laakiin waa independence rally oo lagu doonayo aqoonsi in ay ku helaan reer Alberta marka sida ay ognahay Soomaali aad iyo aad u tiro badan gobolka ugu Soomaalida badan weeye gobolka Alberta ee Canada sida Minnesota ee u tahay gobolka ugu Soomaalida badan ee Mareykanka marka gobolkan Soomaali aad u fara badan ayaa qaxootinimo ku gashay waliba khaasatan magaalada Edmonton ee sida ognahay wada dhalada ah halkaas waxa ku nool Soomaali aad u fara badan oo malaayiin ku sii dhow dhibaato ay ku heesaa oo way saameynaysaa arintan Canada ama gobolka Alberta ka taagan sida ognahay Soomaali far badan oo waxa jira shaqooyin aan professional ah ka shaqeeyo gobolka Alberta
Edmonton dad yow far badan oo ka calacalahayo waa la arkay shaqo la'aan baahsan oo ka jirto gobolkaas isaga ah waliba markii loo barbar dhigo gobolada kale ee Ottawa caasimadda Ontario Ottawa iyo waliba Toronto meelahaas waa meelo aad u ladan laakiin gobolkan ayaa aad iyo aad macnaha ay isheeg ooga cabanahay British Columbia sidoo kale dhinaca badda ayuu ka xigaa ama Pacifica goboladaas oo dhan waxyaabo aan laga sheeganaynin ama laga dacwoonaynin ayuu gobolkan gaar u leeyahay oo waxaasoo dhan ooga daranba in arrimihii fundamentalka ahaa haddii ay noqoto iskoolaadkii in mushaaraad la siiyo ay sheegay macallimiintii ka shaqeynaysay ay ilaa isbuucyo striking uu socday ama ay sheegay banaanbaxyo ay socdeen looga soo horjeedo dawladda Canada marka Canada buuqyo fara badan ayaa ku furan sida ay ogeen ba buuq waxa jiro Trump uu ku furay oo ah in canshuuro aad u faraha badan uu madaxa ka saaray oo aysan awoodin ayada oo la daaladhacayso dadyow ay keentay wadanka sanadihii la soo dhaafay oo ay ku soo daabuleysay lacag bixintoodii inta ayaga lagu hooday oo istaageen sida ognahay dawladahan Mareykanka iyo Canada markay dad sii qaadaan waxay ka sugaan lacagta qofkii lagu dhoofiyay iyo kharashaadkii ku baxay iyo waxaas oo dhan waa laga sugaa inta qofkaas uu cagihiisa ku istaagahayana waxa la siiyaa lacago kab ah oo qofkaas marka intii la doono wadankaasi ku noolaado ama uu ka shaqeysto kadib ayuu lacagtii dib iskaga bixiyaa wixii oo dhan ayaa isbixin la taas waxa ooga sii daran ayada oo dibadda macnaha ay sheeg laga cuna qabateeyay oo Donald Trump percentage-kii aadka u faraha badnaa waayadan dhanba ee la daaladhacaysay Canada advertisement TV-ga Ontario TV-yadeeda laga sii daayay oo macnaha Ronald Reagan madaxweyne hore oo American ah uu sheegahayo dadka Canadianka ah inay important yihiin Canada iyo Mareykanka ay u dhaxayso taariikh aad u baaxad weyn oo ah isla noolaasho walaalnimo iyo waliba dhaqaalo iyo waxyaabo intaas ka sii badan marka aan la fogeenin dardaarankii uu ka tagay madaxweyne Ronald Reagan ay ka daareen TV-yadooda ayaga oo macnaha ay isheey kaga dalbanahayo Donald Trump in sidaan ama xaaladan ay ku jiraan uu wax ka bedelo oo canshuur dhimis uu sameeyo tariffskan faraha ka baxay ilaa iyo hadda ay awoodi la yihiin oo la daaladhacayaan 10% uu ugu sii daray on top because of the advertisement-yadaas TV-ga Ontario TV-yadeeda laga soo sidaaya ama gobolka asaga ah marka xaaladda Canada waa faan oo la farkama qodno Soomaali fara badan inay joogto gobolka Alberta khaasatan magaalada Edmonton ay buux dhaafiyeen marka sidoo kale hadii aad magaaladaas joogto ama gobolkaas guud ahaanba qaabka ay ku saameysay waxyaabahan laga cabanahayo ee isheey shaqaalihii inay guryahooda iska joogaan wax laga shaqeeyo la yahay kuwii xitaa manualka ahaa la isheey overpopulated laga dhigay ama dadkii ay u qaybsami laayihiin maadaama kuwii professionalka ahaa dawladda wixii ay ku kaabi lahayd ama dhaqaalihii ay ku bixin lahayd oo dhan aysan macquul ahayn oo dhaqaalihii uu la degay ninkii Donald Trump ahaa canshuurihii uu ku soo rogay Canada hadii aad joogto magaalada Edmonton ama khaasatan guud ahaan gobolka Alberta sida ay ku saameysay arintan waana la wadaagi kartaa hadii uu muuqaalkan ku soo gaaro wixii fikirkaada qaybta commenting noogu soo qor muuqaalka like noo saar YouTube-ka hada ku cusub tahay subscribe waana mahadsantiin